waxaa maalmahan dambe soo badanayay goobaha waxbarashada sida jaamacadaha, iskoolada, bareefadada iyo goobaha diiniga lagu barto ee gudaha magaalada Muqdisho. waxbarashada oo udub dhaxaad u ah nolosha aadanaha, haddana ma jirto cid koontaroosha dhalinta dhameysa heerka koowaad ee jaamacadaha dalka. xilliyadii barisimaadka dalka waxa uu haystay waxbarasho lacag la'aan oo ay wax ku baran jireen canshuurta dalka, balse waqtigan ma jiro waxaas oo idil. qaar ka mid ah bulshada ku nool gobolka Banaadir ayaa ka hadlaya xilligan la joogo heerka waxbarashada dalka sida ay tahay. bismillahir rahmaanir rahiim waa su'aal aad macquul u ah. waxbarashada dalku waxay soo martay heerar kala duwan oo ay mas'uuliyad ka tahay wasaaradda waxbarashada dalka dhammaan goboladana maamusha. waxaa kor loogu qaadi karaa dadka oo midaysan manhajka iyo waxbarashada la bixinayo dugsiyada sare ama dugsiyada dhexe ama kuwa hoose oo la mideeyo dalka oo dhan hal manhajna lagu wada qaato. saas ayaan filayaa in ay waxbarashada dalka kor loogu qaadi karayo iyo macallimiin tayo leh oo dalka oo la diyaariyay oo si fiican aqoontooda heer sare leh ayaa waxay sababi kartaa in aan u baahanahay waxa kamid ah dhismaha tacliinta oo kale oo qofka markii ama dadku maskaxiyan markii u dhisanayeen waxa sahlan inay dal dhisaan baa sahlan. waxbarashada maanta markii feature guud laga bixiyo ama sawir guud marka laga bixiyo waan soo kabanaynaa oo waxaan dareemaynaa yani heerkii hore waxbarashada dalka Soomaaliya waxa u maleysaa waqtiyadii hadda la soo dhaafay taqriiban adiga xilliyadii burburkii kadib dadka inay waxbarashadii ay saad ugu dhiirigelisanayn, balse wixii ka dambeeyay 2006 wixii ka dambeeyay ay noqon dadka Soomaaliyeed wax bartay educator ah oo hadda la helayo dhalinyaro yar markaas dalkooda wax ku bartay waxbarashadiina ka bilaabay isla markaasna heerkada bulshada u sareyso. haddana waxaan ka mid ahay ardayda Soomaaliyeed wax ka barata dalka, waxaan aad u boorinayaa inaan dal kale aadi doonin. waxbarashada dalka iyo dibadda waxay ku kala duwan yihiin waa manhaj. inagu waxaanu badanaa ku baranaa luqadda afkeena hooyo ee Soomaaliga walow ardayga Soomaaliga ee dalka jooga uusan hore u fahmi karin luqadda Ingiriisiga waayo laano laguma barbaarinba. laakiin macallinka baraya haddii uu yahay macallin Soomaaliya waxbarashadii hore ma sha Allah waxbarashadii hore waxay ahayd wax aad u fiican waxaana ahayd bilaash. waafan Soomaha buugaagta dawladda bilaash lagu dhiibi jiray dadka waxay ku waxbari jireen bilaash ilaa iyo dugsi sare ilaa iyo jaamacadda. ma sha Allah xilliga hore xilligan isku hal ma haddana waxay noqotay xilligan waxbarashadii lacag dadkana duruuftooda aad ay wada xun tahay. waafan Soomaha dadkii hore iyo dadkan isku hal maaha. waxbarashadii hore ma sha Allah waxay wax oo aad u fiican oo bilaash ah oo free ah. waafan Soomaha haddana waxbarashadii waxa cunug ugu yar bishii waxa laga rabaa intaas oo lacag. sidaan wada ognahay wadamada horumaray ee caalamka waxbarashada waxa maamulo oo gacanta ku hayo dawladaha gacanta ku hayo. anagu maanta yani dawladeenu way soo kabanaysaa almost waxay u muuqataa yani inaysan somehow aysan lahayn awood maanta waxbarashadii idil ay kula wareegto, laakiin way iska cadahay yani dawladdu markay waxbarashadii maamulayso ilaa bilow ilaa gabagabo ay gacanta ku hayso dadkay soo saari kartaa waa dad ka duwan dad private wax ku soo. magaalada Muqdisho waxaa ku nool dad fara badan oo aanan awoodin qarashkii ay wax ku baran lahaayeen. Maxamed Cabdullaahi Salaad, telefishinka caalamiga Royal magaalada Muqdisho.